وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بام هذا ودن اسكناتي waxaan caawa halkan isugu nimidnay laba xafladood oo waaweyn. xafladda khatimka kitaabkii siirada ahaa ee halkan Sheekh Umar inoogu jiray oo runtii Ilaahay aan uga baryaynay inuu Ilaahay ka jisaysiiyo dadaalkii sheekhu galiyay inuu halkan inooga akhriyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. siiradu muhiimadda ay leedahay ay culimadu muhiimadda u saarto kuwii inoo qoray siirada rasuulka ee kutubta inooga qoray iyo kuwa hadda inala joogay culimada inoo akhriyayaaba muhiimadda ay leedahay waxa weeye markaad siiradii nabiga baranayso waxaad baranaysaa taariikhdiisii akhlaaqdiisii xishoodkiisii dulqaadkiisii deeqsinimadiisii dadnimadiisii dun wanaagiisii qofkuu nabigu ahaabaa taariikhda siirada ku sugan. markaad siirada barato jacayl baa kuu gelaya waayo inta sifo ee nabigu ku leeyahay ee bini aadamku u yaqaano wanaagga bini aadamku gaal iyo islaam mid madow iyo mid caddaana mid faqiir iyo mid taajira wax wanaagga oo la isla yaqaanaa jira. مثلا bini aadamku oo dhani runta wanaag buu yaqaanaa deeqsinimada wanaag buu yaqaanaa dulqaadka wanaag buu yaqaanaa xishoodka wanaag buu yaqaanaa sabirka wanaag buu yaqaanaa cafinta iyo saamaxaadda wanaag buu yaqaanaa. waa universal values waa qiyam caalamiya oo dunida oo dhani gaal iyo islaam wanaag bay u taqaanaa. waxaa dunida wanaagga looga wada yaqaanay gaal iyo islaam la isu raacsan yahay inuu wanaagsan yahay oo imika nin diin haystiyo nimaan diin haysani ninna kaala murmi maayo runtu inay fiican tahay ammaanadu inay fiican tahay daacadnimadu inay fiican tahay xishoodku inuu fiican yahay wanaagga noocaas ee dunidu isu waafaqsan tahay ayaa akhlaaqdii rasuulka oo gebigeeduba ku urursan tahay. haddaad xishood maqasho qofkii ugu xishood badnaa ee taariikhda bini aadamka soo maray waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. haddaad deeqsinimo maqasho iyo gacan furnaan iyo faxalnimo waa basharka bini aadamka ilaahay abuuray qofkii ugu gacanta badnaa ugu deeqsisanaa. haddaad dulqaad maqasho iyo dulqaadasho waa qofkii ugu dulqaadka badnaa ee taariikhda aadamaha ku jira. haddaad xishood iyo qof yacni akhlaaq wanaagsan oo xishoonaya maqashana calamkuu u sidaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. marka waxaa lagaaga warramo taswiirtii rasuulka ku soo baxaysa xaqiiqadii rasuulka ku soo baxaysa. waxaad markaa miisaamaysaa markaad caqli fiyo ku eegtad iimaan iyo nuur iyo indha ilaahay arkayo ku eegto waxaad isweydiin maxaad kaga sugantahay. marka dulqaad laga hadlo maxaad nabigii kaga dayatay. marka deeqsinimo laga hadlo maxaad nabigii kaga dayatay. marka xishood laga hadlo maxaad nabigii kaga dayatay. marka cafin lagaga daydo ee qofka inuu saamaxo wuxuu yiri umirtu an a'fu amman dalamani wa an asila man qata'ani wa an a'ta man harramani khudh al-'afwa wa'mur bil-'urfi wa'rid 'anil jahilin. waxa la yafaray buu yiri rasuulku Muhammad alayhi salatu wasalaam inaan cafiyo qofkii dulmay inaan xiriiriyo qofka i gooyay inaan wax siiyo qofka isagu ii diiday. halkeed markaa maanta kaga sugan tahay waxaad isweydiini dib baad isugu noqoni ama ma waxaad odhani talow qof sifaadkan aad ku aragtay meel dunida ku hareysaa qofkaasi se muxuu kaga duwan yahay dadka kale. ninka nabi maxamed sunnihiisa qaatay ee si dhab ah u qaata sunnaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa dhaqankiisii waa dabeecadiisii waa wuxuu dadka kula macaamilayay waa wuxuu jaarkiisa kula macaamilayay waa wuxuu xitaa cadowgiisa kula macaamilayay. cadowga haddaad macaamilayso waxaad u fiirsataa imika waxaa jira xeerar caalami oo la yiraahdo Geneva Convention oo dagaalkii labaad ee adduunka kadib la sameeyay oo xeerasha caalamiga ahayd waliba khaasatan dagaaladu markay dhaxmareen dunida mujtamaca ku nool maxaabiista xuquuqday leedahay xuquuqda qofka ee dadka nugul leeyihiin haweenka shuyuukhda dadka waaweyn waxaasoo dhan Geneva Convention baa la yiraahdaa. markaad u fiirsato xeerarka nabi maxamed u dejiyay dagaalka wuxuu saxaabadiisa faray qofka waa yeelka inaan la dilin wuxuu faray dumarka inaan la lay wuxuu faray caruurta inaan la lay wuxuu faray makaaniisadaha raahibiinta ku jira baladoo fiirsada walaalayaal inaan la dilin way reeban tahay biri magaydeeday ku jiraan muxuu sidaa u yeelay
مساجد كان نبت قليه مركا نيسد نبت قليه إلهي وحنا فرينا إن عاين ديمها ضدك كليه ويا إلهي بيجاهل لما كعاين يجونا مركا نيسد قفك كتيرة إن أنا الدليل بالنبي جن دجالة ضفرين مركو حقوق دي بني آدم كأردن سجى ولا عليا وحكجار يا حير كستوى عالم كل كتير حقوق دي حيوان كوسجى وحقوق داري سحابة دي الجهاد كمركي كتيران أي عدو محارب كأت دجالة ميان بلديك دينته إنه واحد سيسي terminology قال كمحارب كابير دين وقال ككل دجالة ميان قال كان دجال كقول جرين ديجي سوا كامدنون كهشيس كقول جرا وكامدنون كمسلمين تكدحنا وكامدنون دجال كمحارب كجهاد كيدين دحية اللي تدجال ما يسوع وحنا بيجينا عليه الصلاة والسلام فري صحابة ديسي إن أنا جيت كوكل قبنا جيت كي يسقى يسلقيني جيت ك يسقى إن أنا يسلقيني اسكت ده إنك محارب كدجال ما مسلم كيه إنه إنك عدو جه جيت كوهاس قبنا يوسف تلقى إن أنا جيت كاس اسكت شري ولا جيت ك قرآن باكونول حيوان كاكونول ضد كهر صدا مرق مروح السجى حقوق دي حيوانك مروح السجى حقوق دي environment ما أنت واحد دنيا كعباد يسا درت الله جرى يا سببها يكون كيني سنة بتقول كذا عيد الدنيا هتشرين بوري جيت كوكاهوس كلاي يا سيدا وحسوق كرا أدون حق على اللي جاي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مركا ولا ليال مركا سيرة النبي علماء دواي كور رميسو وأدون لضبك عين نرشي سي أوردن وحب الله مقري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو السميي يوحو الرالي كالنغضي يوحو الديدي يوحو كآمسي يوحو أمري يوحو الريابي مد نبل لجمت تجين وهي نرشا كحرن عبادة دي باكحرن waxa xitaa la daba galay markuu qoyskiisa macaamil gaar ah la leeyahay sida uu sameeyay baa xitaa la daba galay walaalayaal kafa mu'jizatun li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam in adoon ilaahay abuuray sida loo daba kaco oo raadkiisa la guro maadaama cibaado tahay fadhigiisu waa cibaado sarajoogiisu waa cibaado surdadiisu waa cibaado maadaama noloshiisa ay cibaadadeeni ku xiran tahay adoonka sida loo daba guray إنه ليس رجل عادي محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت في الحجر نبي محمد وبشر لكن أنسد بشر كاهي هدي ما أنت هذيك السنة يود بيصير لو تبقرة هي فعل سمايسي بقول عيب بكا صباحي واحد شرع عيب صاحب كوني كلوجي هون تدك كلا كلوجي واحد شرع عيب حاس كوني كوجوك تهون عيد كلا كوجوجي واحد شرع عيب أديك وني نفتح دكتور تهون عيد كلا كوجوجي أدون للدبقوري إنتاس مركو حاسكيس لما عامليو مركو عدويس لما عامليو مركو أصحابكيس لما عامليو مركو جاركيس لما عامليو مركو قفكيو بعامل تجاري دحمرين لما عامليو أدون للدبقعي وهن هل عيب الله صلى الله عليه وسلم إنه نبي إنه رسول إنه رجل ليس بشر عادي محا مركان نقطي ميل كاستو نولوشا كميدا hadday caafimaadka noqoto hadday dhaqaalaha noqoto hadday bulshada iyo macaamilkeeda noqoto hadday dagaaladii sida loo maaleeyo noqoto shay walba wixii xabiibka Muhammad lagaaga sheegay waa sida ugu wanaagsan ee shaygaas lagaga hadlayo hadii laga hadlayo sida caloosha bini aadamku caafimaad u hesho wuxuu isticmaalay oo u fiirso waa sida ugu wanaagsan ee caloosha ku caafimaado hadii ilkaha bini aadamka laga warramayo iyo waxa uu wanaagsan wuxuu nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam ummaddu dhibi hadaan lahayn ومدو دبي هدانا لهين صلاة والبين عضيدان بان كوا جبلها بل دخترك عندها الكاهو تجيب كوب محا يجوا هناك الكاهو ورون دي تبرر المعادي قاف كوا يكورر مركات كهذا واحد شري دختر شرمل كويا الله أو حنونا ده علاشة كل دعاء تخصص كله مركا حديث في سوقات يعني بورك وركوليتستين waxay yiraahdeen eat will keen appetite and don't overfeed yourself you won't be in cuntada cun markaad u baahan tahay naftaadana ha dherginin weligaa bukoon maysid this truthful adage from the Islamic prophet ma bay qarin way noo qireen xikmadan dhabta ah nabigii islaamka laga soo xigtay Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi cuntada cun markaad u baahato markaad u baahato eat will keen appetite and don't overfeed yourself weligaana naftaada ha dherginin ولقى بكون ميس حكمة دندبتها واحد لقى سوء كتير هذه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بل ولا يالو في رصده حنون أور دني وحكي دولنا إياه أنت على وش هذه كنت تكلم كده بدرت أو حمانته إنها هيست
قرب قرعنيسا قرب قضينيسا قرب عشينيسا ولي لبا قور النبي عليه الصلاة والسلام ولي مالين كليا لبا جير وح معونين هدو قرعة ما قضين ما عشين هدو قضينا ما عشين ما قرعة علمدي ووينيدي سو كارنين ساسن باي هاي دمانay bukoon jirin oo cuntadood waxay ahayd waxa yare fudud caafimaadkooduna fiicna hadii laga hadlayo macaamilka bini aadamka ee dad u dhaxeeya ama diblomaasiyad laga hadlayo ama xiriir qof kale oo disaysan laga hadlayana sida ugu wanaagsan nabigeena ku dhaqmay kaleeyhi salaatu wasalaam marka siiradii waxay nasiinaysaa walaalayaal inaynu baranno inaynu noqono ummad aan habaabi karin ummad hogaamiye leh hogaamiye baaqiyadii ilaa nabi maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam ilaa saacada qiyaamaha ay ka dhacayso de baaqi buu inoo yahay digrigiisi baa laay hadii quraanka aayad kaliya soo qaadato inuu mucjiso yahay maxaa daliila warafacna laka dhikrak baa daliila warafacna laka dhikrak digrigaaga kor u qaadnay xuskaagaan dheerayn bal doo fiirsado walaalayaal qaaladii uu nabigu isaayeenay abu jahl iyo abu yaani kuwii ugu xumaa waxay yiraahdeen وابا قبلنا نكني ويلشوا مكعانو ويسكتفير قايا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر أيها قبلنا إلى هير أبو جهل يميات ورخيسان دتكيسي وحكا هذا يمين ومدنا هنا على بيت الرسول كان هالكين كوارنا ما راح نكون كاننا صوبا دقيقة سنة إنه باقي نقول يسوي لهاي مش يجي هل بليون لبب بليون أوقف إن كدوبا مركل الله صو هذا القاضي حيورنا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه مركا ورفعنا لك ذكرك با قرآن كإنه وفلا إنه معجزية كلامك إلهي عشان يطبن قرني كذب باس سيدي الله هذا الهيا وما جرت اللحظة الدون كسر مرت هذا اللحظة واحدة البرقسي النبي محمد الحسين ما جرته dunida inta leeg ama waa la eedaamaya nabiga ku jira ama salaad baa la tukanaya nabiga ku jira ama kitaab baa la akhriyaa nabiga ku jira ama wacdi baa la jeedinaya nabiga ku jira ama siira la akhriyaa nabiga ku jira laxadad uu faaruq ka yahay dunida hadda 1 minute ma 1 second ilbirqsi isha gibideed oo aan la hadal hayni ma jiro hadda markaynu cishaaga ka baxno qolaa subaxii galaysa markaynu subax tukanayno qaar baa duhur galaya markaynu casarka tukanayno qaar baa maghrib ka siib adduunyada way socotaa laxdad نبي محمد عالم كدقريس وكفاروقا ما جرتو ولا لا سيرة ساسي قيمها ينوبل هذا هاي هبين كان عوا وحي نوبل نيسا هبين كان بشي موليد باي نوبل نيسا إلهي بركة ده نسي وبالبركة ربيع ولن أنور باي نوبل نيسا حسكي دلشة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا يلرتو عن سحسوسين إنه إلهي باي إنه واجب ليس لي النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرنا أمرا فبدأ بنفسه إلهي أمر بوي النفري وإسقوا إسكاب الله أوامرت إلهي النفري وقوة إنه النفري صلاة تكذو إلهي النيل أقيموا الصلاة لكن إلهي بتكذا ينمورا صوموا ينيري الله صوم ما ينال مقل سكذا بحية إلهي سكب بحية ما ينال مقل حج كتجي إلهي بتجي إلهي نمورا أمر ككلية إلهي النفري وإسقوا إسكاب الله بوصل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي ملائكة سبحانه النبي كسليا وأمر وصلي قديمة وإلهي كسليا ملائكتي سنة وكشرفي شرفتها سإلهي مؤمنين تنك قيب كلي قالك لقو مدرين قالك لقو مدرين منافقا لقو مدرين مؤمنك شرفتها إلهي سي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سليق النبي يسوي ستا واجبه مركب مجلس السوق قادنا واجب وسي نقنيا ولا لا البخيل بقول النبي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي بخيل وحل يقول بخيل هو بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار بالله بخيل هو عدو الله بخيل النبي يقول حكوت المامين نك نبي أكتي سلقوا السوق قاضي فلم يصلي عليه يعني يصلي ولا لا يروح النصيب دروينا ما أنت مركز صلاة دايم تكنو مساجد كسلي بالله آخرها مركز شيخ ينودعي اللي بعد صلوات المفروضات صلاتها فرل كأكدا شود نبي جي نوح ونوش جيني دعاء مستجاب طه سنها النبي جوا صدح أمر وكسيجي أمر وكسيجي أو تقاضنا يسو فعل لي مدي أو تقضينا يسو إقرار وح وقلاضي أو أكتيس اللي جسمي سنيسي كمتها أمر بوي نسيه صلاة كذب إن صلاة بدبدية صلاة ولي خاصة مفروضات كصلاتها فرل كأجداش إن دعاء المستجاب تهاي النبي إنه شيء لكن النبي شيخ وينود عينه اللي إن آمينته إياك الدعينة يا واسكو أجري وقد
ujiiba dacwatukuma ilaahay nabi muuse ciise iyo haaruun markuu ku yiri muuse ducaynayay haaruun aamiin buu lahaa qad ujiiba dacwatukuma ba ilaahay yidhahdana ducadiinii ilaahay waa aqbalay macnaa aamiintii haaruun iyo allahumma di muuse ya waa aqbalay ilaahay wada leeyahay marka imaamku markuu inoo ducaynayn inana aamiin leenahay ducadu way inoo wada gaaraysaa dawla inoo wada aqbalaya ducadaas markay inoo dhamaatana saliga nabigan ku khatinaa oo culimadu inoo jideeyeen saliga nabiguna rasuulku sidoo inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam duco ilaahay marka la baryayo nabiga saligiisa laga horeysiiyo saliga nabigana laga dambeeyay ilaahay waa aqbalaa marka saliga nabiga sheekhu qaadayo masaajidku waa aaminsan yahay walaalayaal waa nasiib dar xageed ku maqantahay waa kuma ka lagu saliyaya man al-bakhil ma nooyinka kule man dukurti cindahu falam yusalli alay maxad la aamusantahay maxad hoos ugu dhigaysaa saliga nabiga hoos u dhigi saliga nabiga ka aamus sidaasad wa fiikum rasuulullaahi bu ilaahay yiriyo muuminiinta ilaahay wuxuu sheegay inuu rasuulku ku dhex jiro iclamu anna fiikum rasuulullaahi waxaad ogaataan inuu rasuulka ilaahay yani anna ma'akum rasuulullaahi lama oran maciin rasuulka ilaahay fiikum bal fi qulubina bal laga doonay يعني نفتنو إنك عجا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صوما نفتنو إنك عجا مركا اسمه جاشلان مركا مقل كيسة مقعيسة مقشو اللهم صل على النبي مركا ليلا ده اسمه جاشلان صلي هديك الغافل بات كتاي حبيبك عسكيسي يا صلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وحنا نقول يرانتي كراديستون كوري مركو خديبكو آخرية يقود بد جمعة مركو مقع الرسول صو هذا القاضي أما النبي صلى الله عليه وسلم أما حبيب الله إلى أما محمد إلى إريدا مقع النبي كهذا اللي يمركو خطبة دميرنا كسوق كشو وقال النبي وقال رسول الله قال الحبيب سمع رسول الله كذا رسول الله قام رسول الله قام حبيب الله تدكو يقول عربي فهمين لكن مقع عاسي ودوحة كجر دوحة يو كجر مقع حبيبكو يو مساجد كينو قريرة يد موديس خطبة دم مقع الرسول كسوق له مركليات دتكو اللهم صل وسلم وبارك هذه مقع عبل مقلو ولا ليا عودنا داكو علينا دوات سو يجيسان سو مشاكل نكو ما دحين صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم marka mawlidka walaalayaal waxaynu u dhigaynaa oo inu awlaad ugu barbaarinayna oo inu nafteena isugu baraarujinayna imka intii culimadu inoo wacdiyeysay in masaajidka soo galay iyo markaynu ka baxayno isumad ma noqonayno shaygi shalay lagu sheegay markii maanta lagu celiyo saameyn ba kugu yeelanaya marka nabi maxamed la xusay calayhi salaatu wasalaam sharaftiisii laga warramayo karaamadiisii laga warramayo dadnimadiisii laga warramayo deeqsinimadiisii laga warramayo yani duntii samayd ee uu lahaa dadnimo gobannimo ma maqasheen gobannimadu waa ku ururtay xabiibka muxamed calayhi salaatu wasalaam yani waa dhuuxa bani aadam basharka ayuu ya lagu qurxiyay sharaftiisa yani basharka ku sharfan basharnimada dadnimadu waxay sharaf ku leedahay xabiibullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxa oo lagaaga warramo lagu dhacsiyo lagu celceliyo maalin badhin aanad ka eegin laga tuso oo la isku yimaadaba mawlid la yiraahdo walaalayaal si kala bahdaynaanu dhigin yani istilaax ba hadaynu ka bixino waa bishii nabigu dhashay oo dad isku yimaadaan laga warramo siiradiisii jihaadkiisii wixii uu ina faray wuxuu inaga reebay ku ahaa sidoo dadka ugu naxariisanayay sidoo ugu dulqaadanayay adduunyadan halku ka taagnaa adduunyadan ina wareerisay walaalayaal buuraha waaweyn ee Uhud iyo dooxyada waaweyn bataaxa yaala waxay ka codsanayeen inay dahab isaga u noqdaan oo mulkiyo isagoo gaajo dhexda dhagax ugu xidhay waanu diiday walaalayaal ma isleedii nabi maxamed oo dahab helay wax kale la aadi lahaa miyaanu diintun ku faafiyeen dad waxay yiraahdaan iminka adduunyada waxaan doonayaa inaan diinta ku faafiyo warna maxamed uu taamu yeelinay in dahab ay noqon lahaayeen buuro waliba way dalbadeen oo ka codsadeen Uhud baa dalbato dooxyadii Madiinaada oo dul marayay baa dalbaday inay dahab noqdaan uu diiday ilaahay baa kala dooransiiyay inuu boqor nabi ka dhigo boqor iyo nabi baladayna the king and the prophet nabinimo iyo boqornimo inuu isugu daro iyo nabinimo iyo miskiin adoon inuu isku darsado wuxuu qaatay nabinimo iyo miskiin adoon baldo fiirsada walaaliya qiimahaasa masaakiinnimadu leedahay markaan ducaysana maxaynu dhahnaa lamina nasaluka huda wa tuqa wal afaf wal qina wa hubbal masaakiin دعاء النبي كجرت عليه الصلاة والسلام اللهم احشرني في زمرة المساكين جمع مساكين تين لهي نصوح حاضريو كان هذا أنا وهرجلي بالنبي عليه الصلاة والسلام
ومعي فقراء المؤمنين وحسد مركي دنعيه ديدا سودو الى غليه markaan ugu horgalayo فقراء المؤمنين dadkayna fuqarada ee masaakiintii qiimahaas leeyahay hadaynu maalin markaa u qoondayno inaynu ka farxino xabiibkoodii xasuusino oo iyagoo gaajaysan aan dhargino ka jeelka ku jira cunto u geeyno ka dhakhtarka jooga wax u geeyno ka miskiinkeed dayacan wax siino oo niraahno ku farx waa xabiibka maxamed maalintuu dhashay lianna farxadda maalintuu dhashay lagu farxayaa sida Bukhari soo guuriyay هذا بالمفرد كيف كسو غوريي مسلم كاسكدا حتى قالك وين فعضه حتى قالك اي اخر حتى غنفعضه قالك وحو وناك سميه ادويده الى كو اباليه لكن اخر wax kuma leh العمل الوحيد لو وريي او سغن او سو اروري او بخاري امامكني ويناد سو قاطي عملك كليه ee قالك اخر ku anfacay farxo dhalashada nabi محمد عليه الصلاه والسلام وفي ادب المفرد بخاري كسو صار عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيها هبين كريوضي ولالكي أبو اللهب كتبت إذا أبي اللهب كسو دكت حال كاغا كور بوري واللي عذابي بوري هدان لقيتك النرورة وحن هلا بوري مالين كستو اثنين يا بيير لي ورابيايو waxa la igu raada farxadii aad ku farxday dhalashadii nabi maxamed alayhi salatu wasallam Allahu sallallahu qisa jirta Abu Lahab adoontii nabi maxamed adoontii uu lahaa oo Thuwaybiya loo oran jiray ayaa u soo bishaaraysay ilaa nabigu isagoo caloosh ku jiro aabihii dhintay Abdullah ibn Abdul Muttalib wiilashuna qiimo gaar ay carabta ku lahaayeen marka walaalkii oo uur islaantiisii de uradkiisii uurka ku jira ka dhintay bay u soo bishaaraysay inay wiil dhashay farxadii uu ku farxay ilaa walaalkii Abdullah oo ay Abdullah walaalahay ilaa Abdul Muttalib bay ahaayeen wiilka walaalkii ilaahay ka reebay farxaddu ku farxay ayu anti xurri ku yiri xorbaata xorrid farxadii oo ku farxay baa ilaahay aakhiro ku abaaliyay balka warama walaalayaal farxaddu ku farxay dhalashadu dhashay xabiibka maxamed ha hadda nabinimo ugu farxay balka warama ninka nabinimo ugu farxay walaalayaal ha walaalkii iyo isagu yaani xigtanimadiisu ugu farxay walaalkii oo wiil ka haray بل كورها من نك رسول الله محمد رسول الله ما وقفر حي ولا عليه الحظ مالينس إذا كان هذا كافرا جاء من دمه وتبت يداه على الجحيم المقلدة على أنه في كل يوم الاثنين دائما يغفف عنه العذاب فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا إمام كوينا شمس الدين الدمشقي بس ذاك قولي أو قبل كتري هدي قال كي تبت يدا أبي الهاب كسوار ورتي إلى هي سذاك أبالي بسرور أحمد إنه نبي محمد مالك كفر حي فما الظن محاض مالين سابور بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا موحد من إلهي واحد نمدي سقري أو مسلم ونلشي سنة النبي محمد كفر أحسنا ولا ليال محاض مالين سامبو إمام كاسيلي إلهي وحن كبر يينا وحا أقو قيمة بدن حديثي أقو فرحة بدنا أصحاب رسولك محمد أي كم غلين عليه الصلاة والسلام وحو أها سيدي إنو شيئين صحابة رسولك لقوري مركو النبي يقول المرء مع من أحب المرء مع من أحب نينكو قفكو وحو لصوبحا وحو معيسى هذا آخره قفكي وجعلاو واحد هذا عمل كيو سيكستو أقلق الله سنيهي وحن اسكوه بنينا النبي محمد جعل الله إلهي وحن كبرينا إنو نقوه بصدينا النبي محمد جعل الله عليه الصلاة والسلام ولا ليال وان يذكر ديري راليقا هذا وحيان دين كردي إلهي فردقي وحيان دين كردينا دنبقي ويان إلهي هيقدافه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته